kulan wacan wanaagsan qaarta wada nagala xirta halkan oo barta YouTube kullana marba nagala socotaan waxa ku soo qaadan doona xaaladda balad xaawo oo maanta dagaal looga baqayo xaalka oo aad u qasan iyo ciidamada ugu tirada badnaa oo dowladda federaalka Soomaaliya oo weeraray ciidamada Jubbaland ee ku sugan balad Amiin xaalka oo qasan ayaa soo qaadan doona waxa kala soo qaadan doona dowladda Itoobiya oo Shirlal Maxamuud Said Aadan ayadoo doonaysa inay hub iyo sanad military aad u casri ah inay ku wareejiso si uu weeraro dowladda federaalka Soomaaliya ciidamada ku sugan gobolka Gado arrintan oo falqayn doona waxa kala falqayn doona magaalada Laascaanood oo qoorta la isku jiro kadib markii la sheegay in la isku haysto soo xulista ergada oo dad badan oo nabadoona ay wali isku dhagan yihiin iyo maamulka SSC Qaatumo ama maamulka cusub ee waqooyi bari Somaliland oo wacd ku martay in markaasi dagaal ay qaadi doonto magaalada Cerigaba ay difaaci doonto maadaama ay la socoto dhaqay ciidan oo ka jiro dhanka ay magaalada Laascaanood oo soo qaadan doona maamulka Puntland oo asaguna sheegay in la yiraahdo gobolka Sool waxa la yiraahdo وسن gacanta gobolka Sanaag waxa la yiraahdo oo gacanta maamulka waqooyi bari oo san gali doon ayaguna gacanta ku hayn doona oo soo qaadan doona shirka wada tashi qaran iyo marka ka taagan xaaladii ugu dambeeyay ayaa soo qaadan doona dagaalada ka socda Shabeellaha Hoose ee ciidamada dawladda iyo kooxda shabaab u dhaxeeyay oo soo qaadan doona iyo wararkii ugu dambeeyay dalka Itoobiya meesha la kala maray barnaamijka garab meel fogaar si barnaamijka ula soo saaxiibka Furgoda rabaa wax ku weydiiyo arrimahaas oo dhan Furgoda barnaamijku soo dhaw waxaan ku hormarnaa balad xaawo xaaladeeda aad u qasan tahay hubka waa la isku doontay ciidamada dawladda waxay weerareen Baladul Amiin oo markaasi ay dhinacyada ka fariisteen xaalku aad u qasan yahay waxay ku dambeyn kartaa isleedahay Baladul Amiin iyo xaaladda balad xaawo gooniyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay horta balad xaawo iyo Baladul Amiin iyo deegaanadani Raas Kamboni ma way ka duwan yihiin waxayna kaga duwan yihiin laba sababood koow dadkan reer gobolka Gado ayaa dega oo dadkaasi beesha Marixaan baa degta haddagaana waxa weeyaan waa dad dawladii taabacsan haddana wada shacab oo dawladii taabacsan isku dhinac maray markii laga reebay Maxamuud Sayid iyo ashqaas saraakiil oo badnayn mooyaane intooda badan isku barbar weeyaan haddii bay ku soo moglata kale waxay kaga duwan yihiin deegaanka waa ka fog yahay oo Jubbaland hadda ka Soomaaliya gurmadka kaga imaanaya deegaanadaasi waa ka fog yahay muddo soo soconayaan oo waliba waa inay xadka Kenya maraan ma soo mari karaan dhanka shabaab meel ay maraan ba adigu waxa weeye hadii bay ku soo luuqaystaan waa inay soo waxay soo farsamaystaan way adag tahay marka marka muhiimadu waxaan oo idil waxa ka muhiimsan hadii bay ku soo mogol yahay in la wada hadlo in Axmed Madoobe iyo maxaan ku dhahay la wada hadlo hadii uu wada hadal ayna suuro galeynina in Axmed Madoobe deegaanada uu ku sugan yahay uu ku akaysto marka waxa weeyaan adigu Axmed Madoobe fawq al-qaanuun ma aha fawq al-qaanuun hadii aad noqoto waa dhib weeye muddo dheer 14 sano ayuu soo xukumahay hadii 14 sano Ilaahay iyo shacabkii ku garab taagnaayeen oo la lahaa Axmed Madoobe doorkan u daaya hadda u daaya meeshii ma taalo hadda cid walba ka hortimid dawladda baa ka hortimid imaaraadkii baa ka hor yimid oo ku daalay marka waxaan leeyahay meesha Axmed Madoobe nin baa meesha ugu xidhan hadda oo isaga iyo maxaan ku dhahaa mas'uuliyiin kale 30 gaaraya ayaa waxay ugu xidhan yihiin magaalada maxaan ku dhahaa magaalada kasoo ugu xidhan yihiin waana nin isu sharaxay oo raggii Jubbaland asiga iyo maxaan ku dhahay Sheekh Axmed Daahir way badan yihiin Cabdirasaaq iyo saraakiisha meesha ku jirto oo idilba xabsiga wada dhigay waana raggii u soo halgamay weeye Jubbaland ee hargagixisada ka xoreeyay way aniga marka waxaan leeyahay Axmed Madoobe waqtigaad ugu dhamaaday masaajidka iska gal hawlaha iska qabso oday Soomaaliyeed noqo waxa weeyaan waa lagu jecel yahay inta in ka badan dadka waxba sii jijiiday ana in lagu jijiida ma aha Axmed Madoobe waxa leeyahay xas shaqo uu soo duulay suuragal ma ahayn xulka maamulkayga loo socdaa in la kii hore waxaad markii hore lahaa farmaajo igu soo duulay oo meeshan dawliyar baan anigu haystaa tii ku horeysay tii ku horeysay waxaad lahayd Xasan Sheekh baa igu soo duulay Xasan Sheekh baa yaa kugu soo tii ku horeysay Shariif baa igu soo duulay baad lahayd tii ku horeysay Cabdullaahi Yusuf baad la dagaalantay yani adiga ma cirka soo dhac baad tahay marka way ma mursal la soo diray oo malag oo dadka aan waxba la qabin baad Cabdullaahi Yusuf wax ku taageersan ma jirto wax ku taa waxa soo haada way Cabdullaahi Yusuf waa tagay Ilaahu naxariisto Shariif waa ka tagay xilkii Xasan baa ka tagay farmaajo ka tagay haddana Xasankii baad soo noqday marka adiga dadka maxaad kaga duwan tahay marka meeshan marka waxa weeyaan gobolka Gado xaaladeeda marka ciidamada Itoobiya gobolka Gado Ethiopian-kana reegada way iska celin oo Ethiopian-ku waa ka adag yihiin reegadu way iska celin karaan Ethiopian-ku isaga fulin waayo Ethiopian-ka lagu sheegayo waa niman Oromo oo maxaan ku dhahay kaba caaga qabo dhul balaarsi doonaya way iska filayaan hubkana meel buu yaalaa marka waxa weeyaan dhulkaaga iyo deegaankaaga hadduu nin Oromo af gududan oo shaati dawladeed xidhay kugu xukumo reegada waa nasiib darro way
toddoba boqol oo wiil baa ku sugan baa la yidhi meesha la yidhaahdo dolo doolow toddoba boqol oo wiil waxa weeyaan toddoba boqol oo 500 oo wiil oo reegada ah taangida ugu dul fuleys yaa ugu daadani boqol wiil baa ku filan sabab marka ay ugu cabaadaan Ethiopia huuha loo dhaho maba jiraba cabdishidana meesha kama tagayo aniga meeshan ku dhima karaa waa qasab Ethiopia kuma tagayo waa qasab way sabab uu magarata wiil yar oo Cornel ah oo Oromo uu uga tagaa waxa weeyaan waa dulinimo way arintaas taariikhda ay qoriba marka aniga waxa leeyahay sideedaba xaq u mala taageeray hebel ba ii dhow ma aha meesha reegada maamulka iyo Jubbaland cusub haday dhisanayaan oo iyaga xaqooda raadsanayaan de ayaga u leh haddii Axmed Madoobe iyo ayagu heshiinayaan ayaga xaq u leh laakiin reegadu in la juujuubaan diidanahay anu hadda Axmed Madoobe weligood lama heshiinin oo reegadu waxa dhijira Axmed anaga ma rabno 24 saac iyo sanad walba yimaado waxa dhijira Axmed Madoobe ma rabno marka ayagoo diidan ayuu mar walba imaan jiray marka hadda weliina way diideen maxaa suuragal ah marka maxaa la sameyn karaa maamulkan asagoo ka hoostirsan yahay Jubbaland uu ku jirtaa liiska gobol Gadow ku jirtaa way ku jirtaa laakiin de hadda dawladdiina ma wadato reegadana ma wataan waa mid aan leeyahay waa midaan leeyahay culays bay ku keenaysaa oo wada hadal in dib loo galo oo waxaan laga heshiiyeen qori lagu xalinin waa mid aan sheegayo way ilaa mar walba wiilasha Soomaaliyeed la isku dilayna wada hadal ha lagu dhameeyo anigu arrintaas aan taaganahay waana arrin sax ah way sabab ma garanaysaa la isu sii jiijiidana de meesha maba taalaba marka aniga waxaan rajaynayaa in reegado iyo Axmed Madoobe ay heshiiyaan oo xaalka wada hadal lagu soo celiyo oo maxaan ku dhahay la isu tanaasulo oo Axmed Madoobe hadii la yiraahdo casilo meesha ka tago oo senator Ilyas uu meesha ku wareejiyo qorshahaas alla ma garan laakiin jugjug meesha joogo garab istaaga waxa garab istaagaya meesha ragada ma sanda Axmed Madoobe insaas ku tagay ma ninkan dagaal iyo halgan dheer oo soo galay wuxuuna sheegay in asagoo gacmaha dhig ku leh inuu soo galay magaalada Kismaayo cidii xabad kale kaga saartana oo ku wareejin doona laakiin wixii inta ka dambeeyo oo san ogolaan doonin inuu ku wareejiyo in dagaalna uu diyaar u yahay ama dawlad federaal ha ahaato ama walgoleed kale ha ahaato cidii ku soo duusho ama shabaab ha ahaatee inuu cagta mari doono marka ma sahlan Axmed Madoobe arrintaas lagama sugayo tanaasul in ciidamadiisa Jubbaland ay markaas waxay doonayaan inay weeraraan gobolka Gadow laakiin ayaga ayaa la soo weeraray oo hadda dhinacyada laga fadhiyaa ciidanka Jubbaland ma dagaalami doonaan ku sugan balad Amiin ma dagaalami doonaan su'aal taagan waaye marka dhinacyada maadaama ay ciidamada dawladdu ay ka mareen ishaan ku hayn doonaa wixii ka soo kordhay gobolka Gadow dawladda Ethiopia waxa la leeyahay wali waxay ku adkaysanaysaa inay badaha ay tagi doonto ay leedahay anaga Ethiopia eedaan nahay waxaan tagaynaa badda aan tagi doonana waxa waaye waa badaha wadamada xuduudka nala sida Djibouti Eritrea iyo Soomaaliya saddexdaas wadan ay isha ku haysaa mar walbana ku soo celinaysaa inay tagi doonto laakiin sidee ku tagaysaa dagaal miyay ku tagaysaa nabad horta kuma tagayso nabad looma ogolo oo qolo walba waxay tiraahdaa anaga baddeena dhulkan lama iman karo dagaal ayaana ka xignaa sidee marka badaha ku tagi kartaa waa su'aal aad taagan oo aad u taagan dadku isweydiinayaan firgodow Ethiopia maxay badaha ugu soo celisaa maxay mar walba ciidanka iyo wax ugu faantaa haddii ay bad tagi karto mar hore tagi lahayd ma dagaal gashaad aru sheegaysa Ethiopia horta waa nin dhalinyaro waxa iska haysta Abiy Ahmed la yiraahdo oo aad u xukun jecel oo 8 sano hadda joogay inuu waxa weeyaan uu yeelan 20 sano kala joogana uu doonaya qoomiyad aad u far badan oo Oromo la yiraahdo uu ka dhashay oo la gumaysan jiro dadka la gumaystay qoomiyadaha la gumaystay kamid ahay hal mar qolka laga furay hal mar magarad wixii laga furay marka maadaama xarga laga furay hanqalkii waxay u taageenba wadamadii dariska iyo maamuladii wixii bay hanqalku taageen waana midii ay ku burburi lahaayeen waayo xukunka ma garanayaan siyaasadda way ku cusub yihiin waxbay hadda barteen sanadii ugu dambeeyay laakiin waa 30 sano ugu dambeeyay waxbay barteen laakiin waxbarashadoodu mid khibrad dheer sii leh ma aha waxoodii markay way ka badbadinayaan waxayna u muuqataa in ay aakhirkii ay weerari doonaan dawladda dalka Eritrea hadday weeraraan oo hadda TPLF bay habeen horeba weerareen waxay u muuqataa in halkaasi dagaal xoogan uu ka bilaaban doono dagaal xoogan mar hadduu bilaawdana waxa weeyaan waa meesha waa lagu kala dhaqaaqi Oromo waxa weeyaan hilfaha loo qaadi hadday Tigray u qabsadaan waxay doonayaan in gabi ahaanba qowmiyadaha dalka Ethiopia kala diraan waayo Oromana ma xukumi karaan Maxarana ma xukumi karaan qolo walba waxay rabaan inay meeshooda u sii daayaan bay rabaan marka arrimo xasaasi ah socda Oromaduna way ka badbadinaysaa Soomaaliduna haddii way kala daadsan tahay laakiin ay u midoobaan way iska celin karaan maxaan ku dhahaa Oromada iska celin karaan dawladda Oromada iska celin karaan galin umadaha hayaan marka barnaamijkan uu ordahayo waa barnaamij khayaal ah way hadda shirki xisbiga EPP maxaan ku dhahay aad sabab lagu soo gabagabeeyay waxa la yiri waa qodob dastuur ah la yiri inaan badda tagno xoog ku tagno bal waayahay marka Abiy aan aragnay bal meeshuu gaadhaan aragno Djibouti ba xataa waa qorshe ugu jirta waa tii Mareykanka ka digaya lahaa Djibouti ay madax banaanidiina wada taageersan lahaay ilaa shada waa kii Mareykanka u lahaa xataa Djibouti ba ku jirta oo la leeyahay waanu ay leeyihiin waa weerarayna marka khayaaliga ay ku jiraan Oromadu iyo dhul balaarsiga iyo qorshaha u degan
wax la keeni kara iyo wax meelahan yaalla midna ma aha gooni laakiin waan ogaan doonaa فرقة ما سنتهي وأركض أنا وحكي سو كردو برامج شرقري ملف قارسية